رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام الدمان ولا له ودين إفكس أكاديمي. إن شاء الله هلكم waxaan ku duubeynaa cashir aad iyo aad u muhiim oo walaalo badan ay iga soo codsanayeen oo sababay walaalo badan inay ku dhacaan challenge-yada kaasoo ah my forex fund platformkaas kuwa kale wuxuu ka duwan yahay waxyaabo yar. marka dadkii waxay barteen FTMO waa company ugu macquulsan uguna fudud, laakiin my forex fund way ka duwan tahay FTMO. sababta ugu duwan tahayna waa laba company kala yihiin. company kasta wuxuu leeyahay rules and regulation gooni u ah. marka company-gan dadka inta badan kuma baraarugsano, ayagoo wixii dhan u saxan yahay oo hawshooda iska wato ayaa waxaa arkaysaa qof ku dhahaya challenge waa ku dhacay oo maxaa sababay wuxuuna garanaynin deal doonka qaabka u shaqeeyaan. wuxuu garanayaa laga yaabaa qaabkii FTMO u shaqeyn jirtay, marka FTMO uu ku base gareynaya asaga, laakiin ayada way ka duwan tahay oo insha Allah halkan aan ku sharxi doonaa qaabka ugu duwan tahay iyo qaabka iskaga ilaalin lahayd. insha Allah walaalaha kale sii gaarsii hadda wax badan ka faa'iideen insha Allah ku dhaqan oo iska ilaali saa u guuleysan lahayd. horaan u sii soconaynaa insha Allah. my forex fund iyo FTMO markii la isbarbar dhigo balance account ah FTMO my forex fund-ka markii akoonka uu 100,000 ka yar yahay, akoon 100,000 oo doolar intii lagu dhiibo haddii 100,000 uu ka yar yahay maximum daily loss-ka waxay xisaabinayaan 4,750. 5,000 ay waxay ka jarayaan 250. haddii akoonkaas 95,000 ah oo uu gaaro khasaaro dhan 4,750, akoonkaas suspended uu noqday ama wuu gubtay. halka FTMO ay ahayd akoon 95 ku jirto haddii aad hal maalin gudaheed 5,000 aad khasaartid ayuu akoonka gubanayay. ayaga laakiin 4,750 kaas waay. ayaga laakiin waxay uga fiican yihiin, waxaan ku dhahaa daily doonkooda waa 6,000, laakiin 6,000 haddii akoonka uu menis marka hore ku jiray waxaan dhahnay 4,750. haddii menis kale aad sii gelisid akoonkaas suspended noqonaya ama uu ka gubanaya. waxaan u tageynaa insha Allah iyadoo faahfaahsan aan hore u sii soconno. tan waa tusaale. jaaskan waxaan tusaale u soo qaadanay akoonka 100,000 markuu yahay 1% risk markaa isticmaalaysid waa $1,000 sida halka hoose uga jeedaan $1,000 waaye. marka akoonkan trade-kan noocaana gashay tusaale ahaan waaya trade-kan wuxuu ku dhaqaaqay intaas uu ku dhaqaaqay wuxuu marayay $5,000 uu marayay oo faa'iido $5,000 maadaama faa'iido marayay waxaan akoonka isticmaalayna waa my forex fund $100,000 waaye. 1% riskina waan geliyay oo haddii khasaare aan ku dhaco waxaan khasaarayaa $1,000, laakiin hadda waxaan marayaa faa'iido waxa ii socoto $5,000 weli trade-kii wuu furan yahay. qaybta labaad aan u tagno. trade-kii uu soo laabtay meeshii uu 5,000 ii marayay anoona trade-kii xirin ama TB-gayga ii gaarin ama maxaan ku dhahaaya aan manage gareynin ayuu trade-kii hal mar soo laabtay. wuxuu imaaday intrigii uu imaaday, macnaha intrigii uu imaaday welina hoos uga sii dhaadhacay. that means waxay noqonaysaa 5,000 ee faa'iidada ahayd iyo 250 menis lagu qabtay 9,750. akoonkii markuu gaaray akoonka wuxuu ku dhacay daily down ku dhacay ama suspended noqday. xataa mararka qaar asoona break even hada trade ku xirtay break even kaaga saaro waxay fiirinayaan faa'iidada ku socotay 5% ga ahayd. 5% drawdownka lagu sheegayo waa initial balance-ga, waa meesha akoonka markaas la taagan yahay uu marayo ayay kaaga qiimeynayaan my forex fund. marka waxaa la rabaa inaad ku xisaabtantid mar walba haddii trade uu 10% ku wado
waa inaa xiratid 8% si uunu kugu soo laabanin adoo xataa mararka qaar ruleska iyo istaraatiijiyadaada ixtiraamayo laakiin ku xisaabtamayana inuu tradekan kuu kasbi karo in daily drawdown aa ku dhacaydo akoonkoo faa'iido fiican xataa ku jiray xataa hadduu life ahaa oo ku dhawaad $10,000 faa'iido ay kugu jirtay haddii daily drawdownkaas aa ku dhacaydo akoonkaas wuu gubtay faa'iidana kalama bixi kartid ruulashooda ka mid a ayaaba ku dhacdayba marka waxaa la rabaa inaad iska ilaalisid marka waa isbarbardhig my forex fund iyo FTMO tusaale waxaa lagu dhahay akoon 100,000 equity-giisa uu yahay maxaan ku dhahaye 105,000 waa trade-ka ku jirtaa 5,000 ku siiyey 100,000 akoonka ahaa 105,000 oo noqday trade-kiina wali uu furan yahay trade-kii aa kugu soo laabtay 99,000 adi 100,000 trade-kii break even kaaga saaray waa akoonkaaga uu gubtay halkaasaana wixii shuruucdii ay dhigteen mid ka mid ah ku jabisay ama akoonka live ha ahaado ama challenge ha ahaado ama verification ha ahaado agtooda wuu ka siman yahay macnaha agtooda wuu ka siman yahay waa inaad sidaas u ogaataa laakiin markii aan joognay FTMO waa kambaniga ugu macquulsan ee wax laga qaato waa FTMO akoonka 100,000 lagu siiyey 105,000 kuu maraayay break even aa ku xirtay 100,000 kaaga saaray akoonka tan intaan u tagin marka hore 100,000 kaaga saaray 100,000 kaaga saaray wali akoonkaaga waa safe oo wali macnaha dhib madal kulmin faa'iida ku socotay faa'iidii la ka laabatay laakiin haddii intii uu sii socdo uu 95,000 gaaro 5,000 oo ku socotay plus 5,000 oo kaleeto 10,000 markay khasaartid FTMO waana possible ma aha haddii istaraatiijiyad sax iyo risk management sax ku saxan yahay inaa saas ku dhacdo possible ma aha markaas akoonkaaga gubanaya markuu 95,000 tago waa daily maximum daily loss ko wuxuu ahaa drawdownka maalinka lagu ogol yahay 5,000 ayuu ahaa sababtaasuna FTMO ku gubanaya marka maxaa taliya tusaalaha oo anaga aan soo gudbinaynaa haddaan nahay Wadani FX Academy maadaama dad suuqaan expert ku nahay challenge-yada iyo waxaan aan khibrad badan u leenahay oo aan gudbino maalin kasta aan la tacaamulno xaalad walba aan kala soconno company walba soo kordhay xogtiisa aan hayno waxaan anaga isticmaalnaa waayo waxa fiican waxa macnaha adiga isticmaashid dadka walaalaha inaa u sheegtid oo qofkan walaalka uu ka faa'iido dad badan aan ku dhahay aniga waxa noo sheegtay malaha dadna wuxuu ku leeyahay wallahi ma ana garaneyn waa maasan tahay dadka inta og waa in yar 5% drawdownka my forex fund walina waxaan u maleynaa wali maan arkin qof Soomaali oo si faahfaahsan u sharxayo that's why ugu qasabtay inaan si faahfaahsan u soo sharaxo oo waxaan dhan aan soo diyaariyo waqti aan geliyo kulli waxaan filayaa insha Allah inaa ka faa'iideen aan macnaha walaalihiin kale u sii shargayn doontaan marka anaga ahaan maxaan isticmaalnaa Wadani FX Academy hadaan nahay sidee akoomada forex fund u qaabilnaa kuwa realka ahayna sidee u maamulnaa kuwa challenge-yada verification-nada waxa dhan ay ahayno sidee u isticmaalnaa halkii aan isticmaal lahayn 1% risk akoonka markuu $100,000 yahay waxaan isticmaalnaa 0.5 risk 0.5 risk markaan isticmaalayno maxay ku fiican tahay waxay ku fiican tahay haddii akoonkaas oo macnaha aan trade galno oo 0.5 risk aan khasaare gelino haddii khasaaraha akoonkaas uu ku dhaco oo trade-kaas uu asalka nooga dhaco waxaan khasaaraynaa kaliya $500 $500 ayaan khasaaraynaa Soomaa haddii laakiin uu noo dhaqaaqo trade-kan 10% uu noo dhaqaaqo meeqa faa'iido haysanaa anagoo aan isticmaalayno 0.5 risk waxaan faa'iido haysanaa 10% uu trade socdaa anaga 1% maan isticmaalayno 0.5 aan isticmaalayno marka waxaan haysanaa 5% 10 markuu maray 5% haysanaa trade-ku uu soo laabtayba management-iga si loogu waday trade-ku wuxuu nooga saaray 8% oo faa'iido ah laakiin anaga 1% baan isticmaalaynin markaas waxaan haysanaa 4% nadiifa marka way adagtahay akoonkii inuu ku dhaco maxaan ku dhahaa daily drawdownka my forex fund haddii xataa uu trade-ka break even ku soo laabto 10% oo suuq intuu dhaqaaqo uu ku soo laabto break even macnaha macquul ma inuu 10% intuu dhaqaaqo uu break even ku soo laabto laakiin way dhici kartaa waa suuq haddii dhacdo xataa anaka waxaan khasaaraynaa oo kaliya maxaan ku dhahay 2.5% camal waayo markasta anaga waxaan isticmaalayna 0.5 waa la manage gareynaa trade-ka waxa laga yaabaa inuu 6% profit oo dadka uga saaro anaga laakiin wuxuu nooga saarayaa 3% mar walbo
1%gii ayaa laba loo qaybinayaa marka isku day akoon walba oo haysatid intaad tagtid maxaan ku dhahaa my FX book intaad tagtid 0.5 risk akoonkaaga intuu ka noqonayo fiiri beerka isticmaalaysid fiiri kadib isticmaal qaacidadaas oo annaga aan ku shaqaysano akoonkaagan uuna kaa gubanaynin uu safena ku ahaanayo insha Allah. ama tan labaad ee sameyn kartidna waxaa waaye markasta oo trade aad rabtid inaad qaadatid inaad akoonkaaga tagtid aad fiirisid daily drawdown maalinkii maxaa lagu ogol yahay maanta maxaa lagu ogol yahay drawdownka lagu ogol yahay inaad iska fiirisid kadibna aad trade-kaaga qaadatid oo saas aad u sii socotid. waxaan filayaa inaa insha Allah cashirkan uu cashir qiimo badan ahaa wax badanna ay ka faa'iideen casharada idinku adkaada ama waxa fahmi weysaan insha Allah ila soo socodsiiya inta cilmi ay dheerahay ayaan insha Allah idin faa'iideen doonaa لأجل الله ayaan u sameeynaa tan si Ilaahay ajir nooga siiyo walaalaheena ugu faa'iidaan ugu shaqeystaan. maanta waxa Ilaahay walaalaha kamida wuxuu macnaha uu sameynay akoon 200 kuna ayaa wuxuu sharci ah oo FTMO waliba ayaa sharci ahaan 10 trading days-ka waxay kamid yihiin ruulasha ay leeyihiin FTMO iyo company-gan wuxuu leeyahay 5 trading days shanta bari hadaa si toos u trade gareyn weysid ama 10 bari hadaa si toos u trade gareyn weysid oo xataa faa'iidada rabta aad ku jirtid oo waqti uu kugu dhaco 9 bari hadaa trade gareysid FTMO oo my forex fund hadaa 5 bari 4 bari trade gareysid oo maalin ku dhiman tahay adoo profit target gaaray wax walba ama live ahaado ama challenge ahaado ama verification ahaado akoonkaas waxaan ognahay inuu dhacayo sababtu u dhacayo inay tahay ruulasha kamid ah oo aadan buuxinin. marka trading days-ka waxa meesha loogu soo daray qabaan waa rule kamid ah ruulasha yarka marka maanta walaalkeena muuna ogeen trading days wixii kala dhan way u saxan yihiin kaliya waxa ka dhinay trading days-ka 5 bari oo trade gareey 5 bari uu trade gareey Soomaa waxaana laga rabay 10 bari 5 bari soo trade gareey oo wixii oo dhan kale to confirm u yihiin profit target-ki maxaan ku dhahaa daily loss maxi loss wixii dhan iska ilaaliyay yaa dhowt waxay ku noqon lahayd caqabad muusan fahansaneen oo wuxuu dhahay maan ogeen marka u sheeg waxaan dhahnay waa saxanta waxa kale dhan sawir iga soo qaado uu tusay waxaan dhahay maxaan ku dhahay trading days-ka ka dhimanay maalin kasta 0.01 trade fur xir isla markiiba xir wallahi aad ugu mahad celiyay uu maasan yahay yarkaas isna walaalkeena aad ugu mahad celiyay wuxuu yiri ustaad hadaan ogeen wallahi waan dhici lahaa u dhahay marka anigana waa wax yar waan yara qiiroodo waxaan dhahay qof dhan oo soo dadaalay oo $1,200 akoona kaliya ooga dhacday trading days maalmo oo xataa u dhiman yihiin maalmihii oo uusan furin kaliya waayo muuna garanaynin marka hadaad aqoonin qof walaalka wax qof kugu dhaama la weydiiyaa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun hadaad wax garanayn qof kugu dhaama walaalka weydii ana insha Allah qof wax soo weydiiyaa si macnaha walaaltinimaan ugu jawaabi doona waa free waana macnaha ajir Ilaahay agtiisa aan ka rabo waxaan rajeynayaa insha Allah in cashirkan idin caawiyo wax badan ka faa'iideen dhamaantiin oo maasantiin codkayga xabeeb baa ku yeer jirto wax yar waa yara hargabsanahay ee aantan hargab xuna socdo Allah idinka ilaaliyo ana iso duceeyo in insha Allah Ilaahay caafiyo ana waxaan u sanaa wax idin soo duubayaa si macnaha uga badbaadaan siriqdan iyo waxyaabaha ay kambaniyasha noo dhigteen ma anaga muhiimadan waxa waa si ayaga uga faa'iidnaa anagana waxaan u ilaashanaa marka qof Soomaali haduu ku khasaaro ana faa'iido uma jirto laakiin haduu faa'iido ka sameeyo qof kale walaalkiisa Soomaali ku caawinaya ehelkiisa walaalkiisa heerkiisa wixii oo dhan marka dhamaantii waa maasantiin group insha Allah ku soo biira Telegram-ka YouTube subscribe saara siina share gareeya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.